من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومن إسلامك ملك استجوبتان وعيد السلامين سلامة مسلم كأنك سلامين سلامك بعد ولا ليالو مجعلي ميلا إنان صوفر يستعمل أنك حدو، لكن فعل فلان كذا قبر الله وحبو حلوكنا وحبو حق بلاد إذنكو إقرأ له ددوينه أمد الصومالي ورتميديا وحواي هذا الخوف سيو دها خوف نسيو قاتل. Okay, marka in leeyahay aniga mataqana I made myself investment to Abu Kurmadi waxaan investment gareeyay waqtigayga lacagtayda. investment maxaa lahaa? Qarsh ma fahamtay ya marka meesha waxa wax agreement ama wax mushaharad la dhaha ma jirin. Number one. Secondly, I'll be frank with you guys. I'll be honest, okay? Runta idin sheegaya. Ijid aan ku jiib gacmo daala leedahay mugt. Ma fahamtay? Waxaa jirta marka idin sababta waxa way Abu Kurmadi shalay markaan kulunay ana horto alxamdulillah hortiisa filim waa soo dhigay. Midda kale aniga acting waxaan ka soo bartay Tower Hamlet College. Alxamdulillah rabbil alamin. Dhinaca u dhig. Intee waa Tower Hamlet College? London ku taala, East London. Maxay qabataa? waxa way college waxyaabo badan la bartaa. Qofka dhismo rabo construction, qofka rabo business, qofka rabo acting ka mutaqana ya qofba wuxuu rabo bartaa oo dressing ka timaha la sameeyo all kind of thing la bartaa. Acting maxaa la? You know, like sida filmaadka loo dhigo ama kala riwaayadaha, you know, because of film iyo riwaayad waa two things different. Filmka waxa way waa wax socdo, yeah, waxa way different location meel kala qaar baa la tagaa mar guri mar dibadda mar diyaar dhexdeed. That's film way. Riwaayadana waxa way stage ah lagu dhigaa stand up comedy ay dhahan dadkan wadankan. Stage waxaa la dhahaa marka? Stage si theater ko kale, yeah, something like that. Marka walaalayaal idinkoo iga raali ah hadalkii maartay ay idin sheego. Abu Kurmadi wuxuu dhahay cadow badan saasa jirta waa lagu soo weeraraa waana wixiina waa dhacay dad isku day inay ishu kaansadaan inaan aniga la shaqeeyo ilaa America laga soo wacay, laakiin aniga I was honest waa u sheegi jiray. Ma fahamtay? Midda koowaad teeda kale Abu Kur wuxuu dhaanaa walaalkaaga. The reason being aniga waxaan ahay qof madi. hooyadii aabe Allah yarxama horta waa dhinteen hooyadiina madi ahayd Allah yarxama. marka for that reason ninkan wuxuu dhahay walaal ma kula dhalanimaya? walaal isku abnahay ma qabo. Aabbaha walaal moo dhalay? aabe hal gabar walaashiisa joogtaa. may aabbaha ilmo moo dhalay? may aniga la waay. hooyada ilmo may dhashay? may aniga la waay. kaliga hooyadii hata madi waay. ma kaste walaal ma qabtid? ma qabi. marka sometime bani aadanan ahay ma fahamtay? abti ma qabtaa? abti waxa soo qaba. abti hooyada ku hooyo ku aabe? maya waxa waaye hooyadii aabaheed iyo abtigay hooyadiis. may waxaas dhanka bood micnaha hooyada wax ku hooyo ku aabe ma jiro? No, zip. There you go. Marka sheekadan idin wada. Marka ninkan maadaama uu dhahay aniga walaalkay marka aniga I was ready naftayda aan u huray. Waxaan dhahay Abu Kur hadda idhahdid jump, I'm gonna jump and die. Jump maxaa? macnaha haddii bood idhahdo waa booda dhirka meeqa waa ma dhahay hataa qoor ha jabto diyaar ma aha dhiigayga dhacankii wax kasta diyaar ma aha. ma fahamtay? midda kale ilaahan aaminay subxaanahu wa tacaala aan asigaan aaminay walaalka dhigtay. The reason being yuu dhahay Abu Kur waa boss baasna waa Abu Kur. Okay, shaqadii si fiican kusoo wada shaqeynayni markii hore. markaan leeyahay dadka mataqaana okay dada isweydiina ninkan lacagta waxa sameynaya man waxaan aan sameynay mushaharada lama siinaynin marka de ma inuu soo baxo ugu talagalay. No, it's not like that because qofku markaan nahay walaal war aniga mina idin sheega micnaha waa walaashatay. waan walaalsaday. mideeda kale waxaa waaye aniga dad Swahili kusoo dhex koray. Swahiligana hadda hal mar isfahamtaan ya walaalkooda isku abiyin waa ka jeclaaneen maxaa waaye
shayga kale ay nacban yihiin waxaa waye madaraawo iyo sida bis ay nacban yihiin qof bani aadan inaad jestid, laakiin waxaa waye waa ku dhimanayaan, wax kasta waa kula sameynayaan, they are ready. ma fahamtay? adi macnaha walaalkaa ka dhigat. aniga walaalaan ka dhigtay. marka iyadoo saas tahay, okay, abuukar aniga asiga wax kastaan ka wada hadlaynay, shaqada waa isla wadnay, alxamdulillahi rabbil caalamiin. mataqana hataa kambaniga magaca wax kasta aniga mataqana I've been honest with him, ma fahamtay? everything wax ila soo gudbaan wax kastaan ka wada hadli jirnay, asiga dhibkiisu mataqana personal igala hadli jiray. I don't wanna talk about inaan ka hadlo ma doonaayo, maxaa yeelay that's a secret between him, me and Allah subhanahu wa ta'ala. secret maxaa waay? secret means wax aan adi isla og ani asiga ilaah bis isla og, laakiin ma rabti inaan ka hadlo marwa mana ka hadlaayo, maxaa yeelay qabri len la galaa. ko midda kale dhibka ani asiga markii hadda fiiri labada qof shaqa iska fahmi waayen. aniga waxaan dhahay walaalo macaano shaqadii kula moodi karo waan baxay. marka suuqa waxaa la gelinayaa mataqaanaa naagtiisu raac. okay, marka naagteed haddaan raac, of course naagteed waa raaca. I mean come on, be serious. ma fahamtay? waxaa qofka habeenka dhegah markii wax looga sheego everything goes other way around. okay, ain't my mistake. marka laakiin madaxayga uma soo bixin ma may ilaaha subxaana wa tacaala waa og yahay, abuukar waa og yahay, anigana waa og yahay. horta adduunkan fiiri markaad joogtid laba shay ayaa muhiima, dignity principle of Somali. de hadda mafasirana maxaa la horta dignity and principle. horta raal ahada kasoo dhibkana ay haystaan mar hadda waxa fasir hadda iraadana waxaan ma fasiri karin is a problem. laakiin mid ka dhow idin sheega raal ahada. romanka wuxuu dhahay 100 bari ku noolo sidii ariga idaha maartay ya oo kale waxaa ka fiican hal maalin ku noolo sidii libaaxi oo kale. menaadi raglimo u dhimo, ma fahamtay? laakiin meel magac xumo iyo sharaf xumo inta kugu soo gaari lahayd. marka tan kale filimka markaas dadka riwaayadaha samayn jiray Soomaali waxaa dharkooda wax kasta waa loo gadaa Soomaa. yes, aniga waxay aniga iibsada. you see, this is my money, everything you see here my own. mina wax aniga iskale waay, tabarcaar ma aha, dadka ma soo qaato because waxaa waaye filimka saan u dhiso dad waay qarsh aan u galay. alxamdulillahi rabbil caalamiin. igaday maxaa igada usoon wadiyo, ma fahamtay? tan kale dadka markaan leeyahay lacagta because filimkan fiiri kafi kala dheeri iskaba dhaaf. filimkan wuxuu bilaawday February. okay, Djibouti aadne ay qof markaa meel oodaysa waxaa waaye qarashka inaa adiga safarkiisa, hotelkiisa, cuntadiisa, wax kasta inaa adiga dhiibtid waay. laakiin hadda Djibouti hataa markaan tagnay maartay dadka isla soconay ya hataa ayaga qarash ay galeen, ma ogtahay? ma fahamtay? jeebkooda wax ka dhiibaya. marka qof waa meeshan intuu soo istaagay, some of the puppy waxay dhaheen lagu lahaa abuukar mahdi qarashuu galay. qarashku galay muxuu yahay? puppy, like eyga yeerka maarkano dhaa eyga waa labo. okay, eyga waxaa jira marka wah u dhaa the big one, and the other one is puppyga maartay madaxa loo silaa. ma fahamtay? madaxa loo silaa, ma fahamtay? waxaa waaye aniga lama hadlaayo, to be honest, ma fahamtay? anoo xumaan iyo waxna aan ka hadlaynin, dadweyno runta idin sheega oo ilaahay jecel yahay. ilaahay subxaanahu wa tacaala runtuu jecel yahay because waxaa waaye runta in la ogaado way fiican tahay, ma fahamtay? marka ninaa meesha soo fariistay wuxuu dhahay abuukar qarashuu bixiyaa Samsung. war fiiri laba mar Luton markaan tagnay cuntada waxaa bixisay maxaan ku dhilahay Marisa Carbon. Luton de gobolka wax degan Marisa degan. markaan filimku duwayna cuntada iidaa karisay, jikada iidaa gelisay, cuntada iidaa soo iibisay. waxay tiri 200 pound ay u baxday dhaaday. is close to $250 amal waay, ma fahamtay? $250 amal waay. miskiinta qarashkeeda iidaa gelisay, jikada wax kasta iidaa sameeyay. okay, intaas waxay u sameeysay filimka in oo meel laga gaaro. okay, meelaan la ijaaray, meesha la ijaaray fiiri midaan kuu sheegaa. staffkan shaqada ka shaqeeya shaqaalaha waa laba nooc.
there's a main characters of the movie filimka main characterka mayaa yaa ahay to be honest aniga Marisa Corbono inta ugu muhiimsan Mama Fainus iyo waxa waaye Romeo inta kale waa puppy waaye mugtay they are not main character role weyn kuma jiraan ma fahamtay waa is like extra filimka markii la dhigay waxa jira main character iyo extra oo dad wax yar ka soo galaya jira marka dadka ugu kharash badan lacag markii la dhiibayo kale waxa waaye dadka oo main characterka ya in lacag la siiyo soma dadka muhiimka hasi yeeshee horta wax meesha lacag la dhiibay ma jirto okay marka from February aan ku dhahay 2020 ilaa iyo hadda meeqa bilood waay 10 bilood waay isane from February ma bisha 12 aan ku jirnaa hadda okay you understand me marka bil kasta meesha asiga abuukar waxaa soo gashaa 18,000 read my lips 18,000 dadkana meeq waay main character 10 ma gaaran 10 qof ma gaaran marka dadkan dhahaya 25 qof way iyo 60 qof way meeshay ka keeneen aniga ma garanayo xisaab dadka filmka ku jiraan bal fiiri ya for example hada fiiri markii la tago kala Germany markii inta la iga waday waxa la yiri hotel la ijaaray ma fahamtay hotel marka meesha tagnay guri walaashiisan joognay marka qarashka baxay muxuu yahay ma sheegi kartaa papiga dhahay meesha ma taqaana holiday bal aaday ma taqaana sana leele because you are puppy you don't know shit Switzerland ma la aadin Switzerland okay hata hal maalin gabarta Marookanta ayaa nacasuntay qadada meesha la cunay wax qarash abuukar ka baxay ma jirto let's face the music diyaaradda meeqa laga bixiyay diyaaradda waxa waaye 19 pound $20 ما 20 باوند lacag baan la isticmaalay ma ali 19 ay halkii qof okay inta ka baxana waxa way 10 qof ma gaareen anyway ma fahamtay markii saaxiibo 18 kuna qaatay bil kasto ma fahamtay kaasi kugu sii dheer Safi channelka aad ku iibsatay filimka markaan ku weydiiyay waxay dhaade waxba kama ogaadaan laakiin waad iibsatay ma fahamtay marka ayaysiintana ka bax ayin ma business marka aniga wax dhan kama hadlaayo ma fahamta aniga aan hadda kulay meesha alxamdulillah meesha ma de ayaysiintana lacagtiisa usii dheer moogtay marka aniga wax dhan kama hadlayo ana hadda Allah hal meesha waa ka baxay alxamdulillah rabbil alamin marka laakiin maalin kasta maartay marba papi la soo diro oo dhahay I don't like that kind of shit ma fahamtay let's talk the reality ya wax kasta dhacay waa dhacay aniga shalay waxaan ku dhahay walaalo meesha waa ka baxay wanaagi walaal film dad walaala nahayan dhahay sidii u baxay meesha markay puppy in lagu soo dawadiro every day and new puppy martay wallahi billahi foolxumo waay markaan hadlana waxaa la dhahaa boss record to sameey aniga rakaata ma sameeyno walaalo ilaahay waa og yahay adigana waa og tahay qofka rakaata sameey ina adiga tahay not me aniga waxaan ku dhahay walaalo ماشي وابحي فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ماشي هذا الماجرو هذا الماجرو وحي وارد ماذا دب ولا لا لي هاي مركز إنه كالتبل وقعد لكن بورك أنت سوق قرط المربى ترادو فيلم كسان ونقونا فيلم كذا صارت بتكلمه شقاء هذا كوتال يدناها مراكب توي I don't care man it's just like a fly ما فهمتين مركا ولا لو معانو أنا ما جاي هلي دافو war hadda ilaa hadda wajida waa filimka ana waaba ka taga ali dadweynaha waxa ugu sheekaysan mataqaana filimka kii hore wuu ku qurxanaana dhaade welina waxa way image-kayga meesha ku jira so you tell me sawirkayga meesha ku jira no weli aniga meesha ku dhex muuqda ya dadweynaha they watching waxay rabaan inay daawadaan waxa way me boss not you not the puppies ma fahamtay oh yeah I forgot one more thing listen awkar aniga adan cod ku soo dooway ya dad kala u dhigtay doesn't matter banama ku soo caytaman I don't care I don't give a toss like let me tell you my brother okay swahili waxay dhan wacha mseme mchana watasema usiku watalala rest in peace my nigga Michael Jackson wuxuu dhahay
Who is it? Is it my brother? Who is it? Somebody hit my soul now. Who is it? Oda mugtay. Who is it? Yaa way oda. Ma walaalkayga oda. Yaa way. Ya. Qof noloshayda macnaha soolkayga nacab miyaa oda mugtay. Marka ana kaaga muxmi. sool maxaa la De ruux malayna kulli af Soomaali aan mano. Ma fahamtay. Marka mid kale dada papiyasha dhaha mataqaana ninkan uu ku soo aansaaray abo aniga alxamdulillahi rabbil alamin kulli shay yaktubu inda Allah wax kasto ilaahay agtiisa ku qornaayan ma fahamtay waxa la qortay ma aha so naftaadana been ha u sheegin ummadda ilaahayna been ha u sheegin ma gaste so marka runtu wax ka fiican ma jirto ya marka waxa waaye aniga meesha waan ka baxay marka walaalo macaano iga cesho papiyashaada aniga ma doonayo bilaayo rabsho ma rabo I love a peace. I'm a peace man. ما فهمت أنا قلت إله سبحانه وتعالى عن قودي إله غفور رحيم عن قودي ما فهمت إله أصيغا وح أوك because dadweynaha wixii media ay ku arkaan meelaha qorqoran arkaan un bay og yihiin laakiin they don't know what's really happening behind closed door ilbaabka gadaashiis wixii dhacay dadweynaha ma ogo ma fahantay laakiin wixii dhacay ilaaha og aniga og adigana waa og tahay like I say I don't want to talk about it wallahi billahi taala ma fahantay marka I love peace marka ku dadaal nabadgelyada marka walaalow macaano waxyaabaha meelaha kusoo qorqoraysid iga daa ma fahamtay minis iga daa adiga waxaad samayso shaqadaada wado filinkaaga dhiso ma fahamtay anigana noloshayda iyo wixii ilaahay ii qadarsay ilaahay wax yeelay anaa wax iga samaysana marka please leave me alone leave me out of this equationka iga dhaxsaar aniga as personally, I don't want to talk about it, man. Papi usoo dhiibto codkaygan aniga wax ma liga qaaday ilaahay mooyaane qof bani aadin adduunka waxay qaadi karo ma jiro haba yaraatee this is what I have, man, and this fist, this is what I use. You see that called knuckles. Ma fahamtay? I know how to knock down things. I don't talk about shit. Marka, please, for the last, papigana waxaa samaysaa, yeah, leashes ku xir, leashes maxaa lahay, xargo, you know, like the leashes, you know, the papiga lagu xiro. xerig. Yeah. Qoorta u geli. xarigaha aad banaamaha papiga kusoo deynayso u xir leashes and tell them stay away from me. You know who I am, and they know themselves who I am. Marka, those people think that they can be me, let them try. Mufamti. Like Pac say, coward dies 1,000 times, but a soldier dies once, man. Yeah? Fuliga, kun maro dinta. Geesigana, hal maro. I'm ready to die, man. Kabish, dadweynahayga ummadda Soomaali taageerayaasheeda waa idin jeclaa iyo lagu kiindarin waxa way meeshan papiyaashan waxay sheegaan wax ka jira malaha runtii ilaaha og. Oh yeah, midda kale check this out. Nimiyo adduunyada ilaahay qof kasta muxuu u ordaa nin wuxuu ordaa family naag wuxuu ordaa family asiga is okay for him familkiisa inuu la joogo. But it's not okay, boss pass family kids in la jogo. Or aniga listen, I'm not a puppy though. Believe me though, why? Look, you're chewing in wrong tree though. Believe that. Marka haddan waxaan dhahay dadweyne iga raalaada laakiin oh yeah. Gabar, I mean, I don't want to talk about it anyway. Forget it. I ain't gonna say nothing though. واسكا عموس أفسوما أو حالي أفضل ولا ذهب واي ما فهمتي مركا قلبي النبي السور ده هاي متقنا عليه الصلاة والسلام هذا الده هذا الفي عنكو هذا تكهل كرين اسكا عموس مركا أنا رأي هذا المي ولا ليالو يقرأ على هذا واسكا عموس لكني
dadkan papiga meelaha soo fadhiisanayo papiga oo lasoo dirooyo de waa papi ani papia lasoo dira amano eyga weynka muxuu dhaha mudana wa oo dhaha mugd laakiin papiga shit man dadka waxay ku weydiiyaan singiya jabatiri singiga maxaa u jabo iga raalaada sinkida waxa way mataqaanaa musqusha markay tagtay baalka wajiga lagu dhaqanayo af Soomaali maxaa la dhahaa walaalayaal waji dhaqal baalka geedka de oo ya marka kaasam ku dhacay aniga baalkiya jabano ma fahamtay wallahi I was so weak marka weak maxaa weak means xoog ma lahayn ha tabardaro marka ninka la dhaho maxaan ku dhiilay Ajax way celin waayno xoogiya wallahi wallahi billahi wallahi madaqana wallahi billahi waligi qof dhimanay ma arkin ani waxas niid waxna ninka xamar oo kiima xamar maalin kasta bushi bow yeerisa sax u jira wuxuu bow ku toog wallahi dhimanin ya waligi qof dhimanay ma arkin marka waxa taasna ilaahay waa isoo marsi marka dhacdid oo jiratid subaxina shaqo u labisanaysa subaxdin wallahi shaqan galay intaas waxaan dhahay ma taqaana don't show week macnaha maxaa la dhahay jaldalac tusi tabardaraha tusi mafahant meeshan waa imaatan dhahay shaqo inaa u samaysaa umatay waajibkaa gudo marka maantana waxaa lay dhooyaa ma taqaana bal walaalayaalo waxaa dhooysan idinka ninkan wuxuu sameynaya rakato micnaheeda maxaa waay blackmail yeah marka aniga haddaan rakaata samaynayo anoo xanuunsan oo xoog aan lahayn ya oo wallahi waxaan shaah rinji rooti qaleela cunayo intaas naf liigu raadinayo ma fahamtay iyo liin dhanaan markaasaan rakaata samayn lahaa daktar igey iyo waxaan dhihi lahaa war hataa daktar igey ma dhihin aniga daktar igey hataa ma dhihin because I know how to survive. I'm from a ghetto. You see what I mean? Marka dadweynaha benya loo sheegin ma fahamtay and hadda kuley ilaaha subxaanahu wa tacaala ku day dacwati cinda allah dacwadeyda ilaaha u gudbisto aniga bani aadan uma gudbinayo maxaa yeelay ilaahay asiga qafuur raxiim asa ay abuuray asaan aaminsanahay marka dhib iyo dheef dhexdooda so puppies hasta la mañana. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.